maanta waxa isku wada yimiday aqligii dhulbaantay bari baa waxa la yiri nin la oran jiray nin boqorha iyo beel tan jiray waxa beeshiiba waxa dhacday inuu dibi guri galay dibi iyo guri galay markuu dibi guri galay iyo dhari aw ku jeerash iyo dibi afka la galay markuu dibi dhari afka la galay iyo dibi dhari la kacay oo qoorta oo iska saar kari waay ariishkii uu ku jira dibigii qofkii u galaba uu soo jiiraya indhiisa baxranay ariishkii yarana uu dumeeyaa taladii markii la kala saari waayay dibigii iyo dharigii iyo aqalkii iyo la yiri ugaaskii reerka hal la doono si uu kala saaro aqligiisu saddexda shay si uu kala saaro waxay noqotay inuu ugaaskii yimaado ugaaskii uu aqliga xumaan u ahaa wuxuu yiri talada hadaad yeelaysaan taladayda hadaad yeelaysaan waan kala saari buuri waxaan wuxuu yiri ariishka dumiye buuri ariishkii wala dumiye dibigii iyo waxa isku hadhay bala dhariga sayalla dibigina kurka gooyay dibigina kurka laga gooyay waxa la yiri dharigii iyo madaxii baa isku hadhay madax dhariga kala jabiyay dharigina wala kala jabiyay sidaas uu ku taliyay uu ku baaba'ay aqalkii iyo dharigii iyo dibigii maanta waxay joogtaa maskaxdiinu iyay maanta joogtaa halka inaad kala saartaan saddexda shay ee haysta laas caanoodoo nabada oo wax lagu dilin oo hantideedana burburin saddexda maskaxda kala saarta iyo garaada maanta dhul baanta waxa uu dhinaha xidhala hor yaala har xiraahana waa inuu ka dabaasha hadii uu ku taliyo laas caanood hal la baabiyo hal la dumiyo koow dadkana hal la laayo hay hantidana hal la baabiyo ku taliyo waa boqorkii aqalka baabiyay dib ku gooyay dharigana jabiyay weeyaan waa sidii noqonayaan waaska waxa la doonayaa inuu aw ka dhaliyo kaneeco dhalaysa ninka ka dhaliyo banina leeyay talayaa hela ninka kaneeco dhalaysa ka dhaliya rixinkeeda waxba yeelin ninka ban ragalay arinta maanta horta la waxa hal xidhaale garaadadu horaan ugu mahmahay maamaadi caanka noqotay buur barintay oo irbad bay dhashay ee garxajis buurta uu fuulay horaan ugu mahmahay maantana idin leeyahay taariikhdu maanta idinku soo jeedaa taariikhda maanta idinku soo jeedaa waa tala doonayo in intaas ku kala badbaadana waa koow dawladda maanta madaxweyne ibn biixi watana mid baan leeyahay waxa laga doonayaa dhul bahante kala celi shisheeyana ka celi adiguna iska celiyo iska ilaali adna inay wax ku yeelaan iska ilaali iyagana kala celiyo lafahooda kala ilaali waa ku istiliyay mabay walba wax dhacayaan shisheeyana ka ilaaliyo cadawga ku soo duulaya ee ka dhex shaqaysanaya ilaa isma xidhnee iyada laftoodana kala ilaali ree awdal mid baan leeyahay ree awdal waxaan leeyahay inagu horumar baan gaadhnay cilmi ku shaqaysanaa cilmi yaan ku shaqaysanaa maanta nin jaahili inuu in isticmaalo maaha boqor buur madow oo abkii ka baxay oo tuli ka baxay oo argagixisa ah oo waxa Soomaaliland khalkhaliye oo kolba hanti soo diray waan ogsoonahay meesha wax ka soo dirayo inuu daraad ugaaskii la sawiraa waan ognahay daraad ugaaskii la sawiraa waan ognahay buuqa boor ka socdaa ninka wada inuu yahay waan iska ognahay anagu tareed waa la socdaa waxaan leeyahay boor wood ka aqli badantii nin jaahila oo ugaas sheegan oo boqor sheeganaya oo idin isticmaala cilmigeena ka weynaado oo aan noqon dad ka cilmi weyn waxa la isticmaalo ka cilmi aan noqon intaan baan reeawdal noqon cilmigeenu waa inuu noqdaa cilmi lagu faano waa inuu noqdaa cilmi kala garta wixii san iyo wixii fiican waa inuu noqdaa cilmi horumarka socda ee awdal ka socda arka waa inuu noqdaa